shir looga hadlayo xoojinta xiriirka ganacsiga dalka Soomaaliya iyo Talyaaniga ka furmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Talyaaniga ayadoo shirkan ay ka soo qayb galeen wafdi wasiiro iyo xildhibaan iyo dad ganacsi ah oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke markii hore ku soo dhawo Roma iyo telefishinka caalamiga Universal waa wasatay shirka maanta ee ka furmay wasaaradda arrimaha dibadda markii hore wax yar faahfaahin si anagu og wuxuu yahay laakiin ay waxaan shirkan wuxuu ka soo aasaasmay markaan isku aragnay wasiirka arrimaha dibadda isku aragnay magaalada New York ayaan ka hadalnay fursad ah in la abuuro Soomaaliya in maalgashi dowlad ganacsatada Talyaaniga ah ay ku sameeyaan annagana aan la siiyo fursadii aan ku soo bandhigi lahayn sectorska kala duwan ee Soomaaliya ugu horeeyaan beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo sectoradan oo serviceka telecommunicationka korontada waxyaabo dhowr ah oo dhinacaas inaan soo bandhigno oo dowladda Talyaaniga iyo ganacsadeedana ee runtii loo abuuro fursad ay maalgashi ku sameeyaan dowladda Talyaanigana ay ka noqoto meeshaas hormood horseed maanta ayay qabsantay maanta ay dhashay runtii maalintaas waxaan ka shaqeynay waxayna guul runtii aad u weyn sababtoo ah ganacsato badan halkaan timid ganacsatada Talyaaniga ahayd iyo dowladda Talyaaniga annaga oo dowladda Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay in xoog la saaro sidii dhaqaalaha Soomaaliyeed gacan loogu geysan lahaa dhinaca beeraha kalluumaysiga xoolaha telecommunicationka arrimahan la xiriira biyaha iyo korontada adigu runtii waxay la tahay dadkii ka soo qayb galay dhan inay ku abuurtay jidiyada gaar ah waxaa jira xubin fara badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo soo gaaray Talyaaniga weliba ay sii gaareen qaaradaha Yurub kuwaasoo socodkooda ku xiriiray dhinaca ganacsiga ma jiraan hadda dad weli Soomaali oo ka sameeyay ganacsiga oo soo gashtay maalgashi Yurub ku sameeyay Soomaali ku sameeyay oo European ah waa jiraan hadda maanta waxay ka mid ahaa qolo koronto gelinaysay Garowe oo iyaga runtii isku keenay habka korontooyinka kala duwan tan gaaska ah iyo midda hawada ah tan qoraxda ah loo mideyn lahaa inta uu dhalin lahaayeen koronto ku filan magaalo kaliya ma ahane dowlad goboleed ama waddanka oo dhanba marka waa runtii maalgashi waa socdaa maalgashi kale taa jiraan ana runtii maanta aan saaran oo aan ka wada hadalnay waan rajaynaynaa inay ayagoo dhan ay taabagalaan maanta shir goonigooniyaad la gashay mas-uuliyiinta sare wasaaradda arrimaha dibadda ee ka mid ah Gentilone ma jiraan waxaad kala saxiixdeen oo balan wax heshiis ma ayna kala saxiixan laakiin waxaan ka hadalnay arrimaha siyaasadda dalka meesha maraya waxaan ka codsanay in ay gacan weyn ka geystaan arrimaha amniga gaar ahaan booliiska oo ogsoon tahay booliiskeena waxay ahaayeen Talyaaniga dadkii tababarka u soo jiray ayaga jarmalka waxaan Talyaaniga warkaan ka codsanay inay gacan siiyaan waxyaabo badan oo naga ballan qaadeen runtii inay siiyaan inay booliiska tababaro siiyaan halka iyo Djibouti labadaba ay ku siiyaan inay qalab runtii afa u noqonaya booliiska Soomaaliyeed inay kaga hortagaan waxyaabahan dhacdooyinka argagixisano ee dalka ka socda inay ugu deeqaan iyo inay noogu deeqaan waxyaabo badan oo kaleeto hadda aan rabin laakiin ay ka mid tahay waxyaabaha technology-ga ah ee loo isticmaalo arrimaha argagixisada waxaan maanta maqalnay carabka soo mariyeen 286 milyan ee Soomaali loo sintareeyay lacagtaas maxaa loo qabnaa maxay lacagahaas waxaa lagu qabanaya waxyaabo kala duwan ee u badan tahay qayb ka tahay qaybta amniga qayb ka tahay qaybta siyaasadda iyo doorashooyinka soo socda qayb ka tahay qaybaha ganacsiga iyo sidii loo qaadan lahaa tayada Soomaali ay lagu maalgashan karo dalka waxyaabaha waxaa ka mid ah arrimaha sectorka oo socialka ah caafimaadka iyo iskuulada sidii gacan loogu siin lahaa waxaan aad uga codsaday runtii in Soomaali dhalinyaradeeda scholarship Soomaali waa ogtahay annaga waagaan joognay aan xabaranayna iyo kuwii naga horeeyay iyo kuwii naga dambeeyay fursad waxay heleen inay inta wax bartaan scholarship waxaan ka codsaday scholarshipkaas in loo furo dadka Soomaaliyeed waynaga aqbaleen waxaan xataa ka codsanay inta hadda ay ka gaarayaan dad in Soomaaliya laga soo qaado Soomaalida halka joogta inay u bilaabaan in scholarship la siiyo si dadkaas oo dadkooda wax soo barto oo soo noqda dadna gacan ka siiyay waddanka sida loo horumarin lahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke waxaad tahay mas'uulka kaliya ee lagu xusuusto in laba dowlad uu ka noqdo wasaare muxuu yahay xilligan hanaanka siyaasadeed marka la gaaro Agoosto
حناك سياسة وحوي إلى أن رنتي كنسي دلخ على الولد رشيك قال كذا تاسو مهم وحوي هدي أنا حتى كشغل بروسيسك وإن قاسين مش لو بحية ده حوي دورش يهون جلسوا مركز تاسو كنت دالي إلى كشغل حناك مركز على في ده إنه أحيانا نجي حنجده يبغى كي أنا لك ده حوي بروسيس كسر ورئيس اللي يشتري وزارة دولة فدرالية الصومالية مدن عمر عبد الرجاج المركي وأنا أنت محمد روبرتو يونيفرسال تي في روما.